ودوها جمال العاد أفكا كوركو كله هاي سرو صوبر كان وصوها صوبر بكر الدوان راسو قصي برنامج الحاجري مسوي دمدو وها حياة وقت شذا رايش كاسمالس اللي فريم واك أم شح وحياة وقت شذا ذلك الله فرجلي كدي وحلو صوبر يكون فبراتي من الدولة يدا سيدروني أمريكا صوابط جدا بيو حدا سوعا نصر ما يسوع صوابط شخصا لكن جريدة فريم واقي يو تولسكي أغلبية الوطن يقيمينها runtii barnaamijkaas oo ahaa barnaamij aad muhiim u ah ayaa waxaa ka qayb galay howlwadeennada agaasinka waaxda tayada oo ugu badan iyo waaxda adeegyada dugsiyada wuxuuna ahaa tababar aad u wanaagsan oo wax ku ool ah runtiina dadku waxay ka fahmeen aragti xambaarsan in tayada loo baahan yahay meel kasto sanad dugsiyeedkan uu ka duunaa sanad dugsiyadii hore سادة برانش أو برانش أو بروبكتيف أو ألونكسن وأنا قواني وأنا صاحرني إحنا رجينا إن شاء الله إن لو صوبنا فرقوس في الجنوب أجازم كل الدنيا في المدان وفرصتي مثلا كان هير فدرال أو جوا كلوس جديد بمدة وحوي إن لام فقراء وفرصوا شقين يسي إثبت الوطن يحتاج كسيرة أو سكولة الكيايو أو سكولة الكريتيريا أو هو تسوية الوطن فيديو وأرضي وأرضي صحة ومعلن كنا ومعلن صحة على سير غير ويباهن أنا كنت دون المواجهة أجازك وإن ورسالة جديدة لهرمريو لطيئيو أيام قوانين صوبرات صورنتي إني تاجرين هذه هذا هو ورسالة تاجرو أدبان وما يعلن نحن في فكرة فنية براش كان خارجينا إنت في خبرات أديك أجازك وبحيو يحرمه ورسالة tababarro aan u qaban maxalliga maamulayaasha iyo macallimiinta iyo CEC-da gudiyada dugsiyada hadii la yiraahdo branch noocaas oo noqonaya oo barnaamij ku ah dhaqangelinta tayadii iyo framework-gii horay loo sadgareeyo loo ansixiyay waana dhaqangelinayna sanadkan waana ku joognaa hadii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa in ardayda Soomaaliyeed ee sanadka dambe qalin jabinayso laga dareemo xagga tayadooda iyo dhibcaha iyo sida ay u yaryahay numberka ku dhacaya imtixaanka waa tahay agaasim waxaa nooga warbixisaa ahamiyad laga lahay maxay ahayd ahamiyadda laga lahaa wuxuu ahaa maadaama barnaamijkan quality assurance ama tayada ee dhowr waxbarasho isku mid ah professor kala duwan oo shaxli guud oo framework guud oo lagu ilaalinayay tayada waxbarashada horay loo dhigoogariyo la ansixiyay أهميته والله وحواي ما دام من أنت بتجوه مانكي تقنجلينته implementation كمفلينته هذا كدتك إن لا تيجي تولي أجابيدي يكون كل جل هاين دتك أنا هذا لو إن دارو جريو لو ويو الله إذا حد أفانس اللي ينفعل تحصل تلك حد أنا أقوفاني كرنا إن أنا كنا نمبر كم يتحولنا أجاتك ووحيها صيري هذه كذا كسر كيو أورنتي لو عربية إن يتيدا gaarsiiyaan waxbarashada ilaa dugsiga ilaa ardayga ka soo qayb galayaasha tababarkaas qaab nuucee ayaa lagu soo xulay ma agaasinka bis ayuu ahaa tababarkan horweynadiisa mase dad kale ka qayb qaateen oo ku jira agaasinka dadka tababarnay wuxuu ahaa haweenada agaasinka waxa ku jiray ilaa 3 maamule oo dugsiyada oo dawladda oo hoosta agaasinka laga soo qaatay لكن أنت كانوا حياهين وضمنا المحل يجري واحدة محل يجري سيادة وحفرسة يجري وحفرسة بس كافي يعني في كفة السنة أو وحكبرني حتى طائرة وحنا طائرة تيم أو محل يجري من آدم هيدا يهودنا فانكريسو أو سيادة كشفيو أو رنتي محل يجري سنشنال أو شفيو مهجور كبنادر بمروال بمحل يجري barnaamijyada ku bilaabaan oo bilaabay horey inuu bilaabi jiray teamkaas oo ah team expertise oo maxaa la jiray runtii ay ku jiraan dad maxaa la jiray qaranka muhiim u ah oo runtii fahansan barnaamijka quality assurance expertise muddo badan ku shaqeeyay wadamo kala duwan ka soo shaqeeyay teamkaas ayaa ahaa kuwa providerska oo xogtii cilmiga bixinayay teamkana team waxay ahaayeen agaasinkii teamkiisa howlweynadiisa oo branchka ka faa'iideysanayo
si ay u horumariyaan aqoontoodii iyo tayadoodii iyo xaddigeeda ay u horumariyaan adeega looga baahan yahay si uu noqon lahaa adeeg casri ah oo hadda xilliyada jooga la jaanqaadi kara. mudane axmed cabdiqaadir xoosh tababarkani maxaa laga baran karaa? runtii tababarkan waxaa laga baran karaa barnaamijkan quality-ga si rasmi ah weligii baryahan waayihiisan uma shaqaynaynin. in horta dadku way sameeyaan quality oo dugsiyada qaar quality leeyihiin, laakiin quality-gu horta in la fahmo inuu yahay waa in adeega u baxo sida ugu wanaagsan loo gudbiyo. sidaa darteed waxaa laga baran karaa oo dad badan bay ogaan karaan quality-gu macnaheedu maaha in dugsiyada la burburiyo, waa in dugsiyada la koriyo, waa in dugsiyada la siiyo talooyin advice, waa in dugsiyada lagu riixo oo lagu daadihiyo inay la kulmaan halbeegyada tayada waxbarashada ee u degsan qaranka. runtii taasna waxaan rajaynaynaa inaan ku wacyigelino maamuladii iyo CEC ama guddigii waalidiinta ee dugsiyada si ay u noqdaan iskuulo heer ahaan ama halbeeg ahaan waafaqsan tayada waxbarashada laga rabay qaranka. mudane howlwadeenada wixii la baray ma wax ay hore u yaqaaneen ayay ahayd mise wax hadda la soo kordhiyey? runtii barnaamijka dee howlwadeenada waxay ahaayeen howlwadeenada u ardiyeysan marka hore waxbarashada dad macalimiin profesor jaamacadood bay ahaayeen marka hore, laakiin barnaamijkan oo quality assurance-ka ah maadaama dalka uu marka hore aysan jirin wax madax banaan quality assurance aysan jirin ama tayada waxbarashada mar dhow la sameeyey framework la sameeyey, waxay u baahan tahay wax laga in la helo wadanka waa ogtahay muddo toban sano burbursanaayo in la helo xog iyo ilbaxnimo dheeraad iyo qalabada wax lagu asagareeyo ama lagu qiimeeyo. sidaa darteed waxna way garanayeen, waxna waa cilmi ziyaado waaye oo waraan ninka garanayeen waxay noqonaysaa atleet. waana maxaa dhihi jiray dadka Soomaalidu badanaa waxaa dhacda team tababar qaatay in maxaa dhihi jiray teamka ay samaan team kale yimaadaan maadaama agaasinku maxaa dhihi jiray hal sano bal shaqaynayo. hadda teamkan waa team loogu talagalay in marwalba la adeeggareeyo xirfadooda quality-ga la horumariyo si maxaa dhihi jiray ugu faa'iideeyaan. marka waa cilmi kororsi dee dadkuna howlwadeenada ruuxooda academy aqoon-yahani ahaayeen qofka yaqaanana wuu yaqaanay, qofka aan aqoon wuxuu noqonaysaa update iyo maxaa la jiray baraarujin iyo muraajaca iyo in maxaa la jiray ay barnaamijka dib u xasuustaan si ay u dhaqangeliyaan. bal waxaa xoogaa iftiimin ah oo waxaa naga siisaa waaxda horumarinta tayada waxbarashada agaasinka guud ee waxbarashada maamulka gobolka Banaadir. runtii waaxdan waa waaxyaha ugu ballaaran bay kamid tahay agaasinka waxbarashada. shaqaalo maxaa la jiray aad u cadaysan baa ka shaqeeyo. waxay sameeyaan wax la yiraahdo kormeer bay sameeyaan, baaritaan bay sameeyaan, la socod bay sameeyaan. waa waaxda maxaa la jiray si toos iskuulada ula xiriirto oo qabto dhex istaagto. waa runtii waa saameysa quality marka la yiraahdo waa wadnihii waxbarashada weeye. adeeg kasta oo baxayo oo aasinku bixinayo inuu noqdo adeeg maxaa la jiray tayaysan oo si laga rabay u baxo taasoo ujeedadeeda ah. runtii waana waaxda si directi ah maxaa la jiray lug ugu tagto oo kormeer ugu tagto xarumada dugsiyada xogahoodana oo la socoto warbixinadana kasoo diyaariso xogta rasmiga ahna laga qaato. qorshaha tababarada xiga ama waaxda muxuu yahay? hadda waxaa noo qorshaysan maxaa la jiray shaqaalaha waaxda in marwalba la improve gareeyo la horumariyo. hadda baahiyaha soo baxay ku xiran tahay in qiimeyn la sameeyo eriyada ay tababarkeeda baahan yihiin laga tababaro. hadda waxaa rajeynaya inaan laba tababaro kale maxaa la jiray aan u qabano intay shaqada ku guda jiraan oo kii hore dhamaystirayo. wax mar walbo waxaan u nahay heegan inaan shaqaalaha agaasinka maxaa la jiray qaybta tayada waxbarashada iyo adeegyada waxbarashada aan tayadooda horumarino maadaama ay yihiin tiimamka dugsiyadii iyo goobihii waxbarashada si toos ula xiriirayo si maxaa la dhihi jiray message-ka iyo maxaa la jiray ujeedada agaasinka iyo nooca agaasinka waxbarashada uu ka rabo ay u gudbiyaan. markii laga soo tago tababarkan shaqooyinka kale ee aad toddobaadkan aad qabateen? shaqooyin badan baa ayaa agaasinka guud ahaan ka socdo. shaqooyin waxaa socdo arday imtixaanaadka ka caawinaysay in maxaa la dhihi jiray intii barseedka martay waa hore barseedka u dhamaaday dib loogu jeegareeyey. shaqooyin waxaa socday iskuul
howladaha sare dib-u-soo-celin loogu sameeyey oo 30 sano kadib dib loo furay kasoo xargakii xabsiga weynaa u dhigan yahay active badan ba ka socdo waadhow agaasinka wuxuu furay oo daadiliyey waxbarashadii u geeyey gudoomiye sameeyey gudoonadaas oo gobolka banaadir ilaa 4 loo qaybiyey qolo walbana maxaa la jiray degmo kastan ay ka adeeganayso ama adeeg waxbarasho ay ka qaadanayso gudoonka u dhow agaasinka runtii howlaha waxbarashada gobolka uu wadaa aad bay u kala duwan yihiin howlaha uu wado insha allah waxaan rajeynaynaa sanadka ka dambeeyo in maxaa la geeyey waxbarashada gobolka isbedel laga dareemo maadaama agaasinka uu wakiil buuxo ka yahay waxbarashada gobolka banaadir ugu dambeyntii maxaa baaq ah ama talo ah aad u gudbinaysaa ardayda ka dhageysanaysa idaacadda codka caasimadda iyo waalidka intaba waxaan u gudbinayaa baaq runtii agaasinka waxbarashada gobolka inuu eegan u yahay uu mar walba u taagan yahay hayeenta waxbarashada ardada waxaan ku doorinaynaa in maxaa la jiray dadka badan ay waxay ku talin iskuulka ay dhigtaan si nidaam oo sax ah oo talada ay u dhigtaan waqtooda ay ka faa'iidaystaan waalidiintana waxaan ku doorinayaa oo kula dardaarmayaa in ardayda ku taageeraan maxaa la jiray waxbarashada si ay maxaa la jiray ardayda waa arday runtii ayaa la maxaa yeelay waalid haduusan ardayga taageerin ardayga meel ma gaarayo marka waalidiinta ardayda waxaan ku doorinaya inay gacmaha isqabsadaan annagana insha allah waxaan u taagannahay adeegyada ay u baahnaayeen in si wanaagsan ay ku qaataan